Villa Aadan Yabaal bannaankaad ka aragteene aan idin geeyo gudaha gurigan gabaadka u ahaa jiray horjoogayaasha khawaarijtii laga raacdeeyay degmadan muhiimka ah. Markii ay dowladdu khawaarijta ka xoreysay Aadan Yabaal waxaa lagu arkay gurigan ka duwan kuwa duugoobay oo ay deganaayeen dadka ay ka qariyeen dunidan heedantu biday inay sii deganaadaan degmadan. Warbaahinta qaranka waxaa u suurta gashay inay gudaha u gasho gurigan si loo ogaado cidda deganeyd iyo waxa ay ku qaban jirtay argagixisadii laga eriyay halkan. meesha ay galabtii fadhiisa jireen ee u qudbay jireen waa meeshaan hadda aan fadhiyo aniga bartaan waaye bartaan halkaan waaye meesha ay deganaa jireen ay ka qudbay jireen. Dhagarqabe Ciise oo ururinta qarashaadka baadda u qaabilsanaa khawaarijtii jabtay ee joogi jirtay dhulka Hirshabeelle ayaan ogaanay inuu deganaa gurigan. Koox qowleysato ah oo xukunnada xeer iyo xisaab la'aanta u qaabilsanayd khawaarijta ayuu horjoogahaasi halkan ku maamuli jiray. Waxaana ogaanay in gurigan ay tageen dad looga yeeray meelo kale isgeeyay iyagoo ikhtiyaar leh laakiin ka shalaayay kolkii lagu soo baartay. waxaa ku yaa kuraas meeshiiba 3 nin ayaa fariisada meeshaas waa qayb 3 nin ah meeshaan aan taaganaana qayb waay halkaan dheer u jeediina meesha dadku soo fadhiisa jiray waay dacwo beenaadkii xaraanta ahaa oo khawaarijka iyo dadka qoorta uga goy jireen ay ku dhici jireen waayo meeshaan dukumentiyada aan helnay waxay cadeynayaan in halkani uu ka furnaa dugsi dhagareed oo jiilka degmadan lagu qasbi jiray inay bartaan samaynta qaraxyada iyo qaarajinta dadka. Intii aan ku guda jirnay raadinta macluumaadka gurigan waxaan jawaab u helnay horta yaa lahaa asalkii qasrigan ay khawaarijtu ku xariiqatay xarfahan. gurigan hadda aad arkaysiin horey wuxuu ahaa jiray 60kii markii dawladdu u magacaawday markaa jirtay degmada gudoomiyaha degmada ee Aadebaal guriga uu deganaa jiray waay ilaa 60kii markii la magacaabay dawladda Soomaaliya ee calankeeda Ingiriiska iyo Talyaaniga dhulka laga dhigay haddana calankii madooba ay sureen degmooyinka iyo gobolada iyo Soomaaliyaba shalay ayaan dib ku qabanay calankoodii madooba haddana waxaan surnay calankii Soomaaliya oo 5 gees lahayd. Argagixisadii laga xoreeyay degmadan markay xaqiiqsadeen in waayahoodii mugdiga ahaa ay gabaabsi yihiin waxa ay ka badi waayeen inay burburiyaan hoyga ay ka deganaayeen degmadan Aadan Yabaal sida gurigan oo gabaad u ahaa horjoogayaashii ugu sareeyay argagixisada Shabeellada Dhexe. guriga la jibshay wax yaal maraadaha dhan waa jabeen ujeedida kulli maraad fuu ma jirto. degmadan Aadan Yabaal oo ku taala soohdin muhiim ah sida saddexagalka xuduudaha Shabeellada Dhexe ee xiga Hiiraan iyo Galgaduud waxay khawaarijta u ahayd saldhigga ugu weyn ee Hirshabeelle. markii ay u daateen geesiyaasha qaranka iyo xaquudirka deegaanka waxay khawaarijtu awoodi weysay inay la qaxaan warqadihii qaraxyada ay ku bari jireen jiilka doortay ama lagu jirrabay jidkan halaaga ah. Libaan Lugcad warbaahinta qaranka.